kulanti wacan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii korweerka wararka iyo kaftanka oo aanu si wada jira idinku soo jeedinayno anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed iyo saaxiibkay Barraa'il Kacse si wada jirina aad uga daawanaysaan channelada kale ah Kismaayo Cable iyo waliba Qarichi Qod qodobada aan ku daawan doono ama ku dulmeeri doono waxaa ka mid ah barnaamijka kormeerka iyo kaftanka gabadh uu dhalay siyaasiga Soomaaliyeed ee Faarax Macalin Dawaara oo la tariye madaxweyne Farmaajo magacaabay inay isaga laftiisa la taliso waa qodob taliyihii hore ee ururka Gorgor oo lagu dilay magaalada Muqdisho iyo xog ka soo cusbanaatay taalooyin fara badan oo magaalada Muqdisho dayactir lagu sameeyay horeyna uga sii jiri jiray oo dood ay ka timid iyo falcelin xoog leh wasiir Jamaal oo deegaanka laga soo doortay noqday xildhibaankii ugu horeeyay ama mas'uulkii ugu horeeyay ka dhisay xafiis okay qodobadaas aan idin faalayn doonaa idin falanqayn doonaa hadaan ku horeyna gabadha uu dhalay iyo meelaha inala jiidho yaa laga xanaaqay waa kormeerka iyo kaftanka kaftanku wax kastuu geli karaa ina Faarax Macalin aad u maasan tahay Cabdiraxmaan Fakaadha haddii aan ugu galno barnaamijkeena si toos ah qodobka ugu horeeyay barnaamijkii kormeerka wararka iyo kaftanka gabadh xubbi Faarax Macalin la dhaho oo uu dhalay siyaasiga Soomaaliyeed ee reer Kenya Faarax Macalin Dawaare ayaa la taliye u magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma inay qodhiyo madaxtooyada kala taliso madaxtooyada joogta gabadhaas ka shaqeysa haye gabadhan marka waa gabadh Kenyan ah oo Kenya wax ku baratay fadhi marka ama shir ka dhacay madaxtooyada ayaa ka soo muuqatay marka maalmahan ba aad loo hadalhayo warbaahinta aad ay u qoreysay warbaahinta Soomaalida sidoo kale baraha bulshada lagu wadaagay waa gartay marka waxa lagu eedeynayay madaxweyne Farmaajo gabadhan oo baasaboor wadan kala haysata wadanka Kenya iyo Soomaaliya xiisada badda kiiskaasi wali u dhaxeeyo sababta loogu aamini karo xil Soomaaliyeed gabadhaas in loo dhiibo ay dad badan waxa weeye ay hadalhayeen okay iyadoo waliba haysata baasaboorka dalka Kenya Farmaajo laftiisu baasaboorku haystay Mareykanka khayrana Norway war ayaan jawaarina Norway bal ay wada daba war kala taagan badan baa hayso wala soo soo galeen wax miskiinta laga rabo wala garan haye iyada marka waxa la leeyahay hadda waa ajnabi ee xil ma qaban karto Soomaaliya iyada waa ajnabi baasaboor Kenya haysta hadana kaga daranta waxa la leeyahay Soomaaliya iyo Kenya muranka badda ka dhaxeeya marka sababtay gabadhan maadaama Soomaaliya iyo Kenya arintaas ka dhaxayso loogu aamin karaa xil Soomaaliyeed inay qabato madaxtooyada ka shaqeyso waliba la taliyo madaxweyne Farmaajo u magacaabo haye xarabnaan daawadayaasha ee dadka Soomaaliyeed xasuusino waxa jira xubno fara badan oo qaarkood ay noqon karaan madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay noqon karaan baarlamaanka Soomaaliya kuwa ku jira qaarkood ay noqon karaan sirdoonka Soomaaliya kuwa ugu waaweyn inay baasaboor ajnabi ah oo dalka haystaan sale Fahad Yaasiin taliyaha nabad sugidda makii dawladda iska laha mulkiili dawladda hay baasaboor Kenya haysta waa runta oo Kenya waa dhawid ku haysatay Kenya waa dhawid warbixin laga qoray wargeyska Daily Nation mar la haystay Mandheero ka goostay hatta kabanada marka isweydiin mudan hadiiba gabadhaasi dad ka waaweyn oo xilal muhiim oo sirdoonki haya hadiiba baasaboor ajnabi oo Kenya waliba haystaan gabadhan yarta Soomaaliyeed miskiinta waa laga gardaran yahay waxa weeye Soomaaliyana dalkeedii Kenya dalkeedii mid kale oo kugu daray Rizwan soo Norway ma madaxweyne soo Mareykan ma Jawaari soo Norway ma Rizwan wuxuu gaba taqaan adigu waa Ethiopia xilkii ka horeeyay madaxa garsoorka ee jigjigu ah waa xilkan hadda xilkii ka horeeyay aad iyo aad xil buu ka hayay dawladda deegaanka waxa ku hoostaga manin intuu wadan kale xil ka hayay wadanka ku soo wareegsaday Ahmed Ali Daahir soo kale xeeraliyaha qaranka Soomaaliya isaga laftiisu ka shaqeyn jiray jigjigu ka hayay inuu baasaboor Ethiopia haystana waa macquul war inagu tan oo kale gabadha laga leexdaa yalla isbarbaarin hadii kale wallahi waa lagu wada jiraa waxaan idin soo gudbiyay waa xog way gabadhaas hadii lagu eedayo iyadoo gabadh Soomaaliyeed ah oo shaqo ka haysa qaranka Soomaalinimadu ma aha waraqo la qaatay baasaboor moogta hadii lagu haysto waa dhiig mas'uuliyiin far badan oo waxa weeye haysta sharciye wadamo kale madaxtooyada hadii lagu kala guuro aad iyo aad oo madaxtooyada hadii la yiraahdo hadda Soomaaliya madaxda siyaasiyiinteedu nin walba baasaboor ku haysto ha qaato ha tago Sharif Sakiin ba ku soo hadlaa warmada Soomaaliya
wixii kale aad iyo way tegi lahaayeen marka haddii ba ra'iisul wasaarihii oo baasaboor Norwegian haysta madaxweyne Farmaajo baasaboor Mareykan haysta inkastoo hadda uu iska celiyay waa mana munu celinina dhaxweynaha mas'uuliyiin fara badan oo kale iyo Fahad Yaasin taliyaha nabad sugidda Soomaaliya taliyahan nabad sugidda qaranka haddii baasabooro wadamo kale ajnabi haystaan iyaga haddii lagu aaminay xil Soomaaliyeed oo muhiim ah inay qabtaan gabadh Soomaaliyeed oo waliba gabadha Kenya Soomaaliya abaal u gasho 100,000 oo Soomaaliyeed oo qaxootiye ay Kenya joogan waliba Kenya kala ma gabadhan aabaheed inta abaal u galay Soomaaliya waliba aabaheed baa difaac dawladda madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo difaaca kasoo dadka qaxootiga dibdajidooda iyo waxyaabahaas qayb weyn buu ka qaatay xildhibaanka halka laga doorto ah xildhibaanka waa deegaankaas dad baa qaar waxay u dhigayaan in difaacidda Faarax ee dawladda federaalka gabadhaas shaqo lagu siiyay marka waxaan leeyahay si kastaba hadda gabadhaas waa gabadh Soomaaliyeed xubbi Faarax Macalin faraha laga baasaboorkay doonaha haysato shaqo qaran bay haysaa maadaama ay jiraan mas'uuliyiin fara badan oo shaqo qaran haya oo baasaboorro ajnabi haysta iyadu waxay kaga duwan tahay ma jirto daawadayaashana waxaan la wadaagaynaa macluumaadkaasi oo dhammaystiran aad u mahadsan yihiin qodobka xiga dabcan Allah u naxariisto taliyihii ururka gorgor taliyihii aad iyo aad kaalin cad oo muuqata dagaalka military ee lagaga soo horjeedo cadowgan ummadda xasuuqay ee al-shabaab ka geystay deegaano badan xoreeyay wuxuu ahaa taliyaha qaybta commandoska ee Turkiga lagu soo tababaray nin da'yar buu ahaa gaashaan loo ahaa ninkaas baa si dhib yar waxaa loogu dilay ilaalo hotel baa dishay yani ilaalada hotelku waxaan malay wax dadka la hadlo ciidana waa qolada ugu xun aad iyo aad oo Soomaaliya bay qori haystaan iyo Ethiopia bay qori haystaan arkay halkan bud yar baa la siiyaa aad iyo aad ama kuwa qaarna bud baa laba siiyaa aad iyo aad marka surwaal xataa waxay xidhaan dabagelis xun nimankii noocii ahaa baa nin taliya ah oo dawad curcursiya markay iscaybiyaan hal xataa diris quma looma talo wixii noocii ahaa baa sumaduu gartay inay yihiin ilaalo oo yar bahdilaada Kenyan Watchman baa laga dhaaf qala Kenyan Watchman waagi hore anigu waa anigu isoo intuu koofiyad iyo xisla waxayna guri hortaagan oo shidaa isle yaas ii jiray aga markan askariga ee bilaa shaqada meesha iska taag nin shaqo haysto ha aad ma sida afagaadho nimankii noocaas ahaa baa taliyay dilay bal Allah naxariisto dadkii iyo eheladii u ka geeriyeen sabri baan Allah ka siiyay taliyahan horta nin aqoon-yahan ah oo jamaacad soo dhameeyay sida hore u sheegtay Turkiga ugu tababaray oo ciidanka ugu tababaray xaq ka mid ah commandoska ha waxa lagu magacaab jiray Maxamed iyo Saleeman Abikar waxa uu ka mid ahaa ciidankii qabsada Awdhigle waa dhaweyto iyo hogaaminayay sidoo kale wuxuu ahaa taliyahan madaxdii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ilaalin jiray madaxtooyada rag ilaalin jiray ayuu ka mid ahaa meel madaxtooyada u dhow baa lagu dilay hotelka Naasa Hablood 2 ama Naasa Hablood 2 yaa lagu dilay ilaaladii hotelka ayaa meeshan hadda lagu dilay maalmo ka hor baa waxa laga sameeyay bar control marka halka markay yimaadeen baa taliyahan wuxuu codsaday baa la yiri in dudunkii ama meeshii waxa weeye saa loo qaadi jiray in laga qaado oo laga furo wadada si uu u maro bartaas control waa loo diiday baa la yiri marka gaadhigu ka soo degtay uu la hadlay waa loo diiday mar labaad badana iyo codsaday baa la yiri kadibna rasaas baa la huwiyay baa la yiri isaga iyo nin kamid ah ilaaladiisa yaa halkaasi lagu rasaasayay ninkii ilaaladiisa isla halkaasi yuu ku nafbaxay taliyahana waxaa loo qaaday isbitaal dhaawaciisa kadibna isbitaalkii ayuu ku geeriyooday sida ay xaqiijiyeen tay ku-xigeenka booliska Sakiye Xuseen ay sheegtay raggii dilka taliyaha ka dambeeyay xabsiga ayaa la dhigay baa la yiri waxayna sheegtay in baaritaano ay wadaan wixii xog ay ka soo baxdaan macluumaadka ay shacabka Soomaaliyeed la wadaagi doonaan sidoo kale hadda waxa soo dhacday warbixin sheegaysa in aan la xirin raggii ka dambeeyay dilka taliyaha sidoo kale ehelka taliyaha ayaa waxa ay diideen in la aaso ilaa ay dawladda ka soo dhamaystirayso baaritaan rasmi ah iyo cadeymo ku aadan ciddii ka dambeysay iyo sababta loo dilay taliyaha maadaama uu nin muhiim ah aadna waxa way baraha bulshada lagu soo qoriyay mas'uuliyiin dawladda ku soo qoriyeen shacab Soomaaliyeed ku soo qoriyeen kuna tilmaamayay inuu ahaa nin muhiim ah aad iyo aad muhiim ka baxay marka warka markii hore taliye ku-xigeenka booliska Sakiye Xuseen ka soo baxay ahaa in la qabtay dadkii dilka taliyaha ka dambeeyay waxa beeniyay war hadda soo dhacay
ehelkiisa oo diiday in la aaso iyo in aan weli la qabanin sida wararku sheegayaan raggii dilka taliyaha ka dambeeyey. xaalad aada u khadhaadh waxaase ku talin lahaa in meydkaas la aaso waayo meydka waxaa waajib ah in la aaso markii ay naftu ka baxdo. dabcan ehelada waxay u diidan yihiin in la aaso waxaa weeye in ciddiisa marka hore la ogaado waayo haddii la aaso wixii halka ku dhamaanaya wixii halka ku dhamaanaya aada iyo aad marka waxay rabaan inay ku gogortamaan inta geliyo meelaha lagu kaydiyo meydadka isbitaalka la ogaado kadib markii la ogaado si loola xisaabtamo dadkii dilay in la aaso oo taliyaha halkaas lagu duubo. aad iyo aad baad ilka casa u mahadsan tahay daawadayaal sidaan horeba idinku sheegnay halkaad naga daawanaysaan waa Qari Jiqod iyo Kismaayo Cable waxaanuna ku jirnaa barnaamijkii kormeerka iyo kaftanka wararka. haddii aan qodobka kale sii gudbo magaalada Muqdisho shalay waxaa laga xarig furay ama xarig laga jaray taalooyin aad u fara badan. taalooyinkan way jireen laakiin dayactir baa lagu sameeyey. si fiican Axmed Gurey dhagax tuur xawataako sayid Keeni SYL intii maanta sayidkii Soomaalida maadaha ifahano marka sayid maxamed cabdilla xasan waa ku jiray. waxaa ka timid doodo fara badan. aad iyo aad rag waxaan arkayay asnaam ku tilmaamaya. rag waxaan arkayay shaqo badan oo la qabto ka mudan baa jirta lahaa. rag waxaan arkayay lahaa muhiimad aad iyo aad u wanaagsan baa bal ninba dhan buu u tuuray iyadana noo dulmar. aad u maasantahay Avocado intaan oo imaanin xaraka jirka madaxweynaha shalay ee taalooyinkaasi horta hore way u jirtay dawladii dhexe Soomaaliya way jireen taalooyinkan. waxaan u maleynayaa xawataako qofkii garan baa garane 100 shilin Soomaaliga yaa ku sawiraan jirtay iyada ilmo xumbaarsan inkastoo dad shalay dad is weydiinayeen maadaama hadda ilmihii laga reebo kaliya soo qatay mu weynaaday zuwaal dilay kuna waxay lahayn risbaa khayr weeyba ninkii ma khayr waa ninkii yara saas la leeyahay ma qana meel qaraabo ka noqdeen no ka waxa yara khayr madaxa ninkan wax meeshu ka keenay hadaladay maya madax ahaan wuxuu yahay madaxa qolaamna oo eka khayr hadaan hore u guda galno horta sayidka taaladiisa waagaas markii kacaankii dawladii kacaanka markay burburtay ya waxyaabihii la beelqaystay ay kamid ahayd nin baa shalay Facebook wuxuu soo dhigay taalada sayidka oo gaari lagu wato marka dawladii markay burburtay weeyii taalada sayidka gaari lagu qaatay wali waaga inay dahabeed baa la sheegaa ma xaqiijin kara laakiin amaar iyo waxyaabo ah qalbi marka maalmahan baa la sameeyay oo shalay baa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xarig ka jaray taalooyinkaasi oo uu ku tilmaamay in ay yihiin geesiyaal u soo halgamay dalka. nin baa wuxuu leeyahay Facebook qorayay xawataaka nin Talyaani ah qabo Talyaaniga gacan siinaysa xagee dalka ugu soo halgantay waa mucaarad iyo balaaya qaylis hay kuwa waxaan arkay lahaa sayidku geelanagii u dhacay baa ku maqanay sidee buu halgamay marka falcelintu waxay isugu jirtay qaar dad dawladda lagu dhaliilayay qaar taalooyinkaas laftooda dadkii loo sameeyay wax ka sheegayay iyo kuwa maaragtay amaanayo iyagu arrintan ku tilmaamay inay tahay arrin guul ah maadaama dadkan ay yihiin dad dalka Soomaali qulubtooda ku weyn dalkan waxa weeye wanaag badan soo sameeyay u soo halgamay aad iyo aad taalooyinkaas marka hore sheegtay Sid Maxamed Cabdullaahi Xasan baa kamid ahaa Axmed Gurey SYL xawataako waxaan rabaa marka inaan daawadayaasha la wadaagno taariikh kooban oo ku saabsan sayidkii xilliguu dhashay iyo xilligii uu geeriyooday iyo dagaaladii uu soo maray meeluu wax ku soo bartay inta badan sayidka la mucaaradayo la lahaa dagaalyahan buu ahaa nin dagaalamo aad iyo aad horta sayidka sheekada ka hor dartana akhrinaya wuxuu yiri sayidku macnaha wixii inta badan taariikh marka laga hadlayo jihaad lama sheego oo lama dhaho jihaad baa laakiin waxa la dhahaa halgan buu ahaa laakiin magaca jihaad lama sheego marka wuxuu yiri sheekhaas wuxuu yiri marka inkasta uusan jihaad ahayn buu yiri oo uusan cadaysanin oo uusan jihaad caadi ah u sheeganin laakiin halgankii uu galay maadaama uu gaalo kula dagaalamayay dul Soomaaliyeedna waxa weeye u diidanaa iska jihaad buu ahaa buu yiri. Avocado hadii aan taariikh kooban oo sayidka la wadaagno daawadayaasha sayidka taariikhdu dhashay warbixinada aan aragnay taariikhdaha way isku khilaafayaan kuwa waxay leeyihiin bishii December sanadkii 1868 uu dhashay kuwa waxay leeyihiin bishii Abriil 1900 meelahaas dhashay laakiin adigu 1800 meelahaas iyo 60kii meelahaas uu dhashay deegaanka Buuhooda ayuu ku dhashay quraanka gurigooda ku bartay kadibna
xer ka jirtay Soomaaliya ayuu ku beeray xertii marka xogaa markuu akhrisanayay isagii 13 wadaad oo kamid ahaa xertii ama xertiisii yaa waxay aadeen oo u safreen dalka Sacuudi Carabiya magaalooyinka Madiina iyo Makka sayidka halkaas wuxuu kula kulmay wadaad Suudaani oo saalixi dhihi jiray sayidku marka wuxuu ahaa madhabta ama firqadan saalixiyada oo qayb ka ahaa ama qayb kamid ahaa suufiyada ayuu ahaa wuxuu ku soo laabtay baa la dhahaa kadib dalka ay ku soo laabtay markii uu waxbarashadiisii soo dhameystay dalka Sacuudiga magaalada Berbera ayuu ka soo degay baa la dhahaa sida taariikhada aan aragnay ama aan akhrinay ay qorayaan halkaas marka nin cadaan ah ama waxa halkaas marka ka talinayay cadaankii Ingiriiska ee dalka gumaysanayay yaa halka maamulayay nin cadaan ah marka meesha ku qabsadana waxa la weydiiyay keen baa lagu yiri lacagta canshuurta aad u qeeyay baa la yiri marka nin turjumaana meesha uu kala turjumaanay aad buu qeeyay baa la yiri marka wuxuu ku yiri baa la yiri adigu wadanka marida aad wadanka imaadee kan canshuurtii ku yiri sax ninkii u turjumaanaya marka ku yiri waa uu waalayay ninkan halkaas marka waxa looga bixiyay Maad Mulla aan wadaadkii waalna oo ninkii qeylaya tolo ayaa idaayay baa la yiri waalayay bal maadaama uu aad u qeeyay haye oo uu ku qeeyay nimankii cadaanka haye ilaa 20 sano muddo 20 sano ah yaa ciidankii ama jabhadii uu hogaamin jiray ee daraawiishta ay dagaalamayeen meelaha ay aad uga dagaalameenna meelaha Somaliland Taleex iyo Nugaal meelahaas u badnaa 20 sano dagaalka daraawiishta iyo Ingiriiska uu socday heshiis fara badan bay galeen laakiin wax ka soo baxay ama wax lagu guuleystay ma wax kana saacadada hirgalay muusan jirin dagaaladaasi inta badan waxay isugu jireen kuwa isaga laga guuleysanay iyo kuwa ciidanka daraawiishta laga hogaaminayay ay guuleysanayeen waan ogeyn sayidku wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay Afrikaana ee diyaarad lagu weeraro ayuu ahaa oo taariikhda dabcan waa ku jirtaa Soomaalida waxaan filanaya in badan iskuulada loogu akhriyo sayidku sida hadda warbixinada iyo taariikhaha aan aragnay ay qorayaan in ka soo laga yaabo in wax ka khaldami karo laakiin taariikhda saaka aan akhrinayay 1920 ayuu dhintay baa la dhahaa oo la ofsaday ibn Xaris Janaa ka waraabiyo oo deegaanka email 29 meelahaas ku dhintay deegaanka email ayuu ku dhintay ilaa uu xariisto wuxuu ka wada marka sayidku dadka aadka Soomaalida qalbiyooda ugu weyn ee halgankii dheeraa u soo galay si gumeystihii dalka uu uga xoreeyo dhulka Soomaaliyeed dawladuhu la dagaalamay waxay kala ahaayeen Xabashida Ethiopia Ingiriiska iyo Talyaaniga waan ogeyn oo Ingiriisku waqooyiga iyo koonfur Soomaaliya Ingiriiska iyo Talyaaniga kala gumaysanayeen tusaale ahaan waqooyiga oo kala dhulka Soomaaliland Talyaaniga gumaysan jiray dhulka koonfurna waxa gumaysan jiray Ingiriiska 1960kii bay ahayd xilligii dabcan Soomaaliya ay xornimada qaadatay inkastoo labada deegaan ay isku mar aysan qaadanin oo 1 June July iyo 26 June ay kala ahaayeen sayidkuna dabcan xornimadii muu soo gaarin iyadoo wali gumaystihii uu dalka joogo isoo geeriday ibn Xaris Janaa ka waraabiya taala aad u dheer baa shalay Muqdisho looga sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xarag ka jiray taalooyinkaasi laga hirgeliyay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya intaas aynu gudbinaa marka barnaamijkii taalooyinka qodobkii taalooyinka shalay Muqdisho laga hirgeliyay oo dadku ay filcelin ka sameeyeen Cabdixaafid Shakuur marka intaan gudbin Cabdixaafid Shakuur oo kamid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ugu mugaweyn Soomaaliya oo dawladuna dhowr jeer waxa weey ay tallaabooyin ku qaaday ama ciidan ilaalinaya la laayay isagana la dhaawacay marna soo hotel kulaha kulan isaga dhalinyaro xisbigiisa markaas la sheegay inuu tababarayay laga loo diiday inay halkaas kulankaas ay ku qabsadaan yaa ka hadla arintan waa gudoomiyaha hogaamiyaha xisbiga wadajir weey Cabdiraxmaan wuxuu sheegay inay muhiim tahay in dadkii u soo halgamay dalka taalooyin loo dhiso oo la xuso inay muhiim tahay laakiin wuxuu yiri waxa su'aal in la isweydiiyo mudan ah buu kuwii dhintay u sameysay kuwa nool ee sida Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo kala ah waxa weey Ethiopia loo gacan galiyay iyaga ilaa iyo hadda laga hadlin ma maxay kula duwan yihiin buuri dawladda weydiiyay waa hadda waxa weeye loo dhisay taalooyinka waa run su'aashaas buu waxa weeye soo qoray Facebook soo dhigay oo dawladda markaas ku weydiinayay waxay kula duwan yihiin halgamayaashii hore iyo Cabdikariim oo Ethiopia dawladda hadda jirta madaxweyne Farmaajo hogaamiye Ethiopia ay u gacan galisay ilaa haddana dawladdu inkastoo argagixisay ku tilmaantay haddana aysan jirin meel ay si rasmi ah uga dhawaaqday ama
uga noqotay arrintaasi ama ay raaligelin rasmi ah uga ay bixis uga bixisay aad iyo aad qodobkaasi intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa aad iyo aad qodobka xige ee barnaamijka haddii aan u guda galno nin qodobkani qodob xiisadiisa laguba ahaayo aad iyo aad waxaa ay soo jiidatay yacni ereygan cabdiraxmaan cabdishakuur haddii kuwii dhintay taariikhda lahaa ee halyeeyada ah taalooyin loo taagay laga xusuusto kuwa nool ee mudan lagu tilmaamay inaynan soomaali ahayn cadowga loo gacangeliyey laga iibsaday aad iyo aad shilimaad ama heshiis yar la dabamarsaday iyaga hadalkooda xaguu ku jira waa su-aal aad iyo aad macquul u ah aanan isku aragti ka nahay okay wasiir jamaal qodobka inoogu dambeeya wasiir jamaal xasan waa wasiirka qorsheynta horumarinta dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya wasiir jamaal wuxuu noqday baa leeyahay xildhibaankii ugu horeeyay ee xafiis ka dhisa waana wasiir waana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wuxuu noqday leeyahay xildhibaankii ugu horeeyay ee deegaan doorashadiisa ama deegaanka laga soo doortay ee shacabkiisa uu ku matalayay ka dhisa xafiis qaabilsan xiriirka dadweynaha iyo isaga sax wasiirka marka oo xarag jarka xafiiskaas ka hadlayay yaa wuxuu yiri xafiiskan waxaan ugu talagalay buuri in aan ku ogaado baahiyaha dadka aan baarlamaanka ku matalo in wixii kolba horumar ah ee la sameynayo aan ogaado wixii baahiye bulshada isoo dooratay kulli baarlamaanka dabcan halkaas ka soo galay laakiin odayaal baa isaga doortay laakiin wuxuu yiri xafiiskan waxaan ku ogaanayaa baahida dadweynaha shacabka ku matalo baarlamaanka Soomaaliya waxay u baahan yihiin wixii horumar ah markaas deegaanka laga qabto iyo ay u baahan yihiin marka wasiirka hadda waxaa lagu tilmaamay inuu yahay xubinkii ugu horeeyay shaqo fiican ku talaabsaday baarlamaankana ka mid ahaa deegaankii laga soo doortay xafiis ka dhisa xafiiskaasi oo qaabilsan xiriirka isaga iyo bulshada u dhaxaysa lagu ogaanayo baahiyada iyo horumarada deegaankaasi markaasi laga sameynayo iyo wixii mashaariic ah xafiiskaasi magaalada ku yaala ma la sheegay magaalada Dhahar buu ku yaalaa okay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan marka xildhibaano fara badan oo baarlamaanka Soomaaliya ku jira inay sameeyaan oo meeshii laga soo doortay shacabkii aan warka haynin oo sidii loo soo doortay aan ku laabanin oon shacabkii dhihin maxaad haysaan oo seetihiin oo bal dareenkiina maxaa idin haysta nabadgelyadiina noloshiina baahiyaha aad qabtaan maxay yihiin aan dhihin inay ku dhiirin doonaan oo tallaabadaasi ay u noqon doonto mid wanaagsan oo waxaa jirta ama ay ku daydaan waxaa jirta ilka casaw xildhibaano fara badan oo kolkii la dooranayayna ayna xataa odayaal dooranin ay dawladii dooratay oo lacag ay dooratay dadkii ay matalayeenna aan kursigaa ay heleen abaa lagu qabin iyo odayaashii ay kasoo jeedeen aanana tegin albaabkana ka furin lambarna ka qabanin cidda uu matalayo way jiraan kuwa badan oo sidaas ninkana tallaabo fiican buu ku tallaabsaday isaga oo kale marka daxan fakadhow aan ka dhaxgale xildhibaanadaasi mas'uuliyad baa idan saaran shacabka idin soo doortayna adduunka aakhiraba waa la idin weydiin doonaa waxba ma sheegaysa maanta inaad waxa weeye guri qabow oo AC ku xiran yahay inaad muqdisho iskaga jirto oo mushaar iska qaato laakiin shacabkaagiina uu dayacan yahay oo uu gaajeysan yahay oo uu ooman yahay oo rafaad iyo haraad badan iyo abaaro waxa weeye ay daashadeen ama intuu roobdo waxa weeye biyo iyo rafaad iyo waxa weeye daad ay qaadaan mas'uuliyad baa saaran shacabkiina haddii ay dharagsan yihiin iyo haddii ay waxa weeye aysan dharagsanayn oo ay baahi qabaan oo ay baahi qabaan u baahan yihiin in la garab istaaga labadaba waa inaad ka warhaysaan mas'uuliyadaasna waa idin weydiin doonaa adduunka aakhiraba daawadayaal aad iyo aad baad mahadsantihiin sida sharafta iyo qiimaha leh aad noo daawanayseen run ahaantii wixii talo iyo tusaale ahna waxaan idinka codsanaynaa inaad noogu reebtaan qaybaha commentiga aanu kusoo biirinayna barnaamijka ama aanu ka dhimayno tan iyo intaanu barnaamijka kan xiga isugu soo noqon doono oo annagoo idin leh nabadgelyo